Abubakar Omar Son aad ii farxadii u tahay mar labaad inaan ku arko waxa umaleyn waxay u ka dambeysay hadana been afkayga ka ilaali waagi waxa isku keenay Stockholm ay maanay oo adigina meesha ku wareysanay waa kugu soo dhaweynaa Abubakar podcastkiga markuu ugu horeyso ku soo dhawo waa maadsantahay walaalkay aad waa maadsantahay laba sano ka hor ahayd ka war waqti waa ordaya waqti yaa tirinay waxay ani wadanka marka waxa imaad horta wadanka 2014 ma isdheheeninba waqtiga saan intuu ordo aniga soo xisaabi maalmood waxaan wareystay wiil oo saaxiibaheena asayna wadanka jooga cabaar 10 sano ka badan jooga wayna wallahi waxay ila agtu yiri ina imaaday 6 bilood ka hor ha way marka qaar markaan xisaabi ani waa yaaba waxaan dhahay oy dadkiina inta oo waxa la yiraahdaa cabaarka wax ku bartay si jooga waa ka sii darantiin farxada iita Abubakar ina mar kale is aragno waan rajeynaa mar badan is arki doon podcastkigan inta badan waxaan qayb uga soo dhigaa ama markaan bilaabay aan rajada iga ahayd dadkeen inaan la wadaagno bal wixii aan u soo joogno guud ahaan maxaa noogu yaabka badnaa ka shaqo ahaan wadankaana wax ku baratay wadankaana ku soo kortay 80% noloshaada markii loo fiiriyo Stockholm hadda degan tahay shaqadaadana waa xafiiska ugu muhiimsan wadanka markii loo fiiriyo isha ah meesha shaqaalaha ka tahay la taliye siyaasadda guud markaa fiiriso marka Soomaalida ahaan shaqada dhankeeda markii loo fiiriyo waa la dhalin waxa dad shaqaysta ma ahano duruufaha u diidi kar iyo marka isku fiirisay waxa u soo joogtay say kula tahay niyo arin ani aad baa ugu mashquultaa bari hore ilaa hadda waa ku mashquul markii waa dadkeena ma ogtahay waxa la yiraahdaa markii magac hadda bariyaha dambena waa ka sii dartaba markii maxaa la yiraahdaa marka shaqalaan laanta ay badato kale iyo waxa la leeyahay waxaan lagu sameeyaa focus marka anigu waan fikiray waxaan dhahay maxaa keenaysa maxaa ajnabiga laga soo meelaha kale saas lama sheegay maxaa anaga saa focus ka noolu saaray hadda Soomaalina waa ogtahay dad waa markii loo fiiriyo Soomaalinimo waxaa xasuustaa marka Soomaalidu waa dad shaqaysta dad ordo dad bacbishtir ah dad inaa u furan yihiin marka waxaan leeyahay waa waxba maqan waxa naga maqan maxay tahay horta waa su'aal horta aad u weyn anigu jawaabteeda taamaha ilaa hadda laakiin waxaan filayaa waxyaabo badan oo isku dardaray ma ogtahay waxaan xasuustaa berigii adigu 10 sano ka hor baa maleen shayto beri waxaan xasuustaa marka Soomaalidu halka ay ka guurtay loo guuray England UK loo guuray iyo Holland hatta waa laga tagay Soomaaliya halkan klima waxaa la yiraahdaa caruurteena Ingiriis noo barnees oo waxaan caruurta Ingiriis halkan baa laga bartay maxay idin diiday ma halkan baa Soomaalidu way keenin lahayd marka uu hayaabay markaas waxaan wareystay asagaas weydiiyay maana weydiin porto nin saaxiibana oo ka qora foshkara oo ka qora immigration kaas wuxuu yiri niyo su'aal ma ku weydiin karaa Abu Karo wuxuu yiri maxaa Soomaalida baa arkay interview la sameeyay la sheekaystay waxaad moodaa wiil boorsooyinkood inay xiran yihiin oo biri inay xamarka Soomaaliya inuu ku noqonayaan maxaa dhacay sababtaas marka taa waxay isiisay fikrad bay isiisay marka waxa weeyaan waana arkay moogta dadka asxaabtayda marka la sheekaysnaa kulliga aniga xataa ay ugu jirtay bariga hore inaan biri dambe Soomaaliya u noqonayno allo malaya allo marka maxay keenaysaa marka meesha halka aad joogto marka xoog ma saaraysid geediyaha mar walba geedi socdo geedi socod waana moogta anigu waxaan moogta geedi socod baan Soomaaliyeed waxa weeyaan moogta meesha roob ka socda aad jirtay tiiba marka waxa uu leeyahay dhabarka nooga jirta genetically nooga shabaashada marka waxa xasuustaa marka anigu marka halka imaanayay isma deehin intaas soo joogay waxaan anigu wadanka waxaan ka soo tagay moogtay intay dagaalka sokeeyay bilaaban yaa ka soo tago marka waxay ahayd waxba soo baranaysaa kadibna waxa u soo noqonaysaa wadanka taas ay wajistay markaan jaamacadda dhexdeeda maray yaa marka waxaa la siiyay haye Soomaaliya marka dagaalka sokeeyaa ka bilowday waan fikir marka waxaan maadada qaadan doono ma kaliya inaan ku xisaabtamo Soomaaliya oo noqonaya waa inaan ku xisaabtamo hatta waxa halkan uga shaqeyn kara hatta waa inaan helaa chances marka anigu beriga waxaan sameeyay marka waa xisaabtamo waxaan dhahay lama ogeey waqti goorta la noqonayo marka waxaan dhahay halkan waa inaan ku xisaabtataa haddii ay noqoto Soomaaliya aadayna insha Allah markay timaado hadda waa faa'iido ninka halkan ku sii shaqeeyay waxa ku sii kordhisay waqti qabiil rabi waxa wadankaada waa anfacaysa marka si fiican
ma lamaba dareemi karaba waqtigii si u tagaba waaba tan ugu dhibka badanba oo maxaa la qofka uu ka fikiro laakiin inta badan waxaa u malaysa waddanka Sweden markii loo fiiriyo kaleete markii waxyaabo cusub isaas soo kordhaan oo kale waxaa la yiraahdaa ajaanibta ugu badan haddana markii la sii shandhay waxaa la Soomaalida saas ku sii aho waa un kulay siyaasad markii loo fiiriyo dhanka dhaqaalaha oo shaqadaada ii tahay siyaasadda la isku soo xiro Soomaaliya tagtay dhowr sano 2 sano ka hor waxyaabo cajiib ah ku soo aragtay Soomaalida taqaana ma ahan waaga ka soo tagaysay maya anigu wax aad iga yaab anigu hadda markaan ku noqonayo 30 sano oo tigin baa tigay anigu waxaan ka soo tagay mugtaas diyaaradda Somali Airlines baa soo raacay markaan soo baxay meedi dhacdeeda markaan tagay horta argagixisay igu noqoto maxaa yeelay airportka markaan ka degay yani waxaan markaan banaanka u soo baxay waxaa meesha dagaal baa hadda taagan markii meel as markaa fiirso qori baa lala taagnaa askar baa taagan security meel kasta waa la taagan waddankiina waa burburay waad arkaysaa in yani rafaadsan yihiin dadkii waxaad arkaysaa yani meeshii inay ka jirto dayactirnimo la'aan iyo dadkii oo yani dhibkii hore ku taabanaya anigu marka show weyn baa igu dhacay gurigeennii markaa imaad anigu markaan airport ka soo baxay gurigeyga hore ka aaday meeshii aan ku dhasho kusoo koray xaafadaad waa lambar 4 sa Shirima Kutora amaleena dadkii qaba fahmaya Shirima Kutora si fiican oo mudada hoose iskoolka farsamada gacanta ku yaal weyn hoostiisan deganay meesha guriga markaa ma gurigi baa ila yiraahdo wuxuu ila galay hoos dhulka wuu galay markii wadana ciid laga xaqeen meeshii wadana aan geedii laga shaqeeyay maxaad u maleynaysaa marka naxtin baa weegish marka waxaan dhaa meeshii saan u filay horta inuu meeshii burburiyaal waa la socday ma ogtahay halka ka tagay laakiin markaad aragto runtii markay indhaha aad saarto waxa igu dhacay show weyn baa igu dhacay ka wara marka dadka markaa u fiirisa muu ahayn kuwa u diyaarsan calaashaan markaad xoogaa yar dowladnimada iyo wixii waa soo socon doorasho wax waa dhadhaceen waddanka xoogaa systemku isbedelay waddankan mar walba waxaa la yiraahdaa 75 waaba iska dhalinyaro shaqo la'aan iska jirto hay'adihii dowladda qaybo badan ka shaqeysa ama xataa tala celin ah siinaysa ma dareemaysa dadka inay systemyadaas wax ka fahmayaan anigu niyaho marka horta ka tagay hadda waa ogtahay dib baa jira dibka waxa waay marka diaspora taan waxa lagu leeyahay niyo diaspora taan halkan ka soo doonta aniga meeshan joogna wax sameeysanayna halkan oo gumad anigu marka waan fikirin hadda waxa weeye mogta hal qof anigu waxaan aaminsanahay farqi waxba qabatay mogta dadkii aan la shaqeynay hadaan isfahmeynina waxa ma soconayaan anigu marka mid kaliya horta aan ku faraxsanahay waxa weeye dhalinyaro badan baan soo bartay saaxiib la noqday la sheekaystay waxaan waddanka waa isla leenahay ama diaspora dhaha ama diaspora dhihina waa la isla leenahay aan is caawino adigu halkan aad joogteen oo khibrad halkan aad leedihiin anaguna wixii aan soo faa'iideysanay aan isku darsado waxa la isla qabsado marka anigu waxaan soo arkay dhalinyaro saas runta u sheegtay anigu markaan arkay waa ku jiro markaan sameeyay wasaaradda maaliyadda la shaqeynay bariga hore marka ku tagay waxaan World Bank marka qorshe iyo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda waxaan naga caawinayay World Bank waxa la sameeyay survey result markaan arkay jawaabihiisa aan arkay waa yaab 70% waa 30 sano ka yiri hadaan waxa qaldan adigu iska dheh 50% aw between 100 ilaa 100 inta u dhaxaysa 70 waa 30 sano horta naxtibo waa naxayba war waxaan dhahay odayaashii hooyooyinka oo habrihi halkay ka baxeen su'aal way taas mid labaad boqolkii intaas waddan oo dhalinyaro wadamada qaarkood waa lagu faanayo oo xoog bay leedahay waxa leeyahay war waddankaas oo kale mustaqbal fiican buu leeyahay laakiin markaad aragto dad dhalinyaradeena Soomaalida iyo dhalinyarada Soomaalida anigu inta arkay xamalka waa la rafaadsan yahay barka shaqo la'aan baa jirta waxaa jirta yani duruufo xoog lahaa jirta meesha jirta hadda waqti institutionkii wixii hadda soo kordhayaan soo socdaan yani waa mid kalena way gasho maadaama aniga meeshaan karkarsiyo xoog leh ay ku jirto waxaan sidaa waqti wax la sameeyay waxaan ogaadaa laakiin markii wasaarad ama institutionka Soomaaliya wax la yiraahdo waa iga maqan yahay sharciga ma ka wada nidaamka xeerarka iyo nidaamka yani waddan oo ku socdo
يعني waddan Soomaaliya kale oo intaasoo sano oo ku jirta waxay qaadataa 50 sano iyo ku dhawaad in la soo dhiso marka taa waa in xisaabta lagu darsadaa laakiin marka si dhinaca kale fiirsana Soomaaliya anigu inta marka waxaan ku aaday sanadkii 2016 oo doorashada ay dhaceysay horumar talaabooyin fiican baa la qaaday lagu talaabsaday saddex talaabo hore loo qaaday hal talaabo hore loo soo dhigay waaska yani waa waddan saa yani marxaladiisu ay tahay waa qasab yani hal mar talaabo inta la qaado meel fiican lagu mudagaay may been ma kuna xisaabtan xitaa wadankii wuxuu intaasoo xeer iyo nidaam iyo systemkiis uu la yahay 30 sano ku dhawaad ah uu ka maqan waa jiil cusub waa hadii la xisaabiyo 90kii dadka dhashay waa dadkii ku arkaysa xamar hadaa arkay baan sheegay taana waa in xisaabta lagu darsadaa moogtaa jiilka jooga hadda badankooda dhalinyarada waxaan ka wadaa yani waddankaan ay arkeen saa u burbursan anigu moogtaa waxaan qabanaysa moogtaa xusuus baan ku noolanaha marka qaarkood xusuus waddan iskoolaad la aadayo caafimaadkiisu fasaxan yahay oo isbitaalada noo yaalaano haba xumaada systemka xumaada laakiin system baan qabnay iyo nidaam baan qabnay si fiican marka dhibaatada waxa la yiraahdaa moogtaa waddan burburintiisa aad bay u saarantahay laakiin dib dhiskiisa aad waqti badan bay qaadataa wallahi kulli waa maalin saasoo kale tamar uga hadleynay horta dadka markii hore bilowga moogtaa haddii uu ajenda jirin maxaa noogu xiga balaan bii ah way iska dhacaysaa aan laftirkee meeshaan wax ku soo bartay ahayd laakiin hadba duruufaha qaarkood kuuma saamaxayaan oo waddankaas cabaaran ku noolaa hal mar markuu kusoo noqonayna hadhowdan kusoo xiranaya dhanka Soomaaliya marka u fiirisay marka waddankan dadkii way soo barakaceen qof walba laftiisa la soo orday qof adduunkiisa mustaqbal ka raadsaday ciyaalkiisa nolol u raadiyo waddankaana la yimid Stockholm marka dib u fiiris xasuusta saahad marka u fiir 15 sano 10 sano 20 sano ka hor hadda dib u fiiriso kale saahad iimaanta wax badan baa iska bedelay adduunku waa isbedelay Sweden waa isbedeshay Stockholm waa isbedeshay waa qasab midda kale marka loo noqdo 15 sano 20 sano iska dheebaaday marka loo noqdo Soomaalida saa ugu xoog badan oo halka dad badan noogu joogo ma joogin hadda laakiin waxaan nahay community marka la isku daro dadkeena Soomaaliya ku dhashay iyo carruurta halkan aan ku dhalnay waxa lagu xisaabtaa waa 100,000 in ka badan 100,000 in ka badan waa minority xoog leh number fiican way marka waxaan isleeyahay yani waa ka yani 15 sano ka hor lama aqoonin iyo 20 sano ka hor qof iyo Soomaali lama aqoonin laakiin hadda xoog waxa la yahay oo la dhahay alla ilaahay dadkaan waddanka ama qabsadaan ما laakiin dhibka jira wuxuu yahay ma muuqano yani siba u muuqanaa sida xun dhan baa u muuqanaa laakiin sida fiican ma muuqano waxbaa noo dhiman weli misleeda marka jiilkan hore oo waddanka 9-meedii soo galay ama 8-meedii soo galay weli wax uu uga tagi kara jiilka kale ma jiro weli ma kicin jiilka misleeda anigu arrimahaas waa ka fikirinayaho haddayna maraan kala hadlayna daacasuusa sidoo kale ninkii shiineyskan kuu sheegayo nin waxaa jira oo communisto shiineys aad loo yaqaano wuxuu yiri TV-gan oo Fox waa taqaan Fox America wuxuu yahay moogtaa mid yar oo iska cunsuri waay marka barnaamijii waxay ka sameeyeen Chinatown oo Mareykanka waxay dhaheen dadkii wareysanay dadka markii su'aal weydiiyaan qofkii kuma soo celin karo marka wuxuu yiri ana u tagay wuxuu afka shiineysku ku wareys qofkii uu sharxa ka war wadankii saan ka war marka bulshadii jiilkii hore maysan kicinin moogtaa jiilkan wax uu suuqa ku taga ama wax isaga celi maadaama leen ama siyaasiyiin ay ugu jirin ama si kale loo cunsuriyeen marka Soomaaliya marka u fiiriso maxaa ugu xiri leed Chinatown oo arinta ugu badan bay u dhalisaniyo waliba bariyaha kan sanooyinka dambe oo dala soo dhaafay murugo weyn bay ugu dhalisaniyo maxaa dhacay horta waa saas sheegaysa jiilka hore waa baqtiyaa nasiib haddii fursado fiican helaan iyo haddii kaleba yani waa baqtiyaa nasiib laakiin jiilka ku xiga haddiisan uusan si fiican yani waddanka ula qabsanin waxaan isleeyahay waa khasaare weyn ma jirto ka badan taa ma jirto anigu markaan kule muruge arrintaa igu dhalisay waxaan arkaa jiilkii labaad halkaan ku dhashay oo yani weli dhibaatooyin badan haysto
jiil fiican waa jira dadka iskuma dareemo waqti laakiin waxaan ka hadlayaa dhibaatooyinka badnaanshaha markii wax la soo qaadana waa arkaysaa waxaa la leeyahay community-ga la xisaabina dadkii guuda la wada xisaabina waa fahma marka anigu murugo badan bay igu dhalisay ilaa hadda su'aasha jawaabteeda niyahow ma haayo waxaan is leeyahay marka wata haddaan kuu sheegaya moogtahay ninaan saaxiibana ba hadda kor isla hadalnay oo ka qora waxyaaba bugaa ka qora arrimaha dadka halkan imaad dadka halkan usoo haajiray soo galooti ajnabi soo galooti isticmaalina warunta wuxuu igu yiri su'aal ma ku weydiin karaa haa baan wuxuu yiri dad badan ba Soomaali baan la wareystay kulligood boorsooyinka wada xirnoo yiri berri wuxuu malaynayaa inuu Soomaali ku noqonayo maxay tahay sababta waana runtii arrin oo su'aal fiican la isku weydiin maxaa dhacay anigay tahay igu jirtay berigan halkan imaanayay waxaan markaan Soomaali ka soo tagay qorsheyga ma ahayn inaan halkan sii joogi doono waxay ahayd kaliya anigu hadda intaan Sweden maan kor Italian imaado arday Italy waxbarashada loo soo qaaday waxay inaan wax inta barto wadankayga ku noqdo marka halkan imaaday dagaalkii Sokeeyna qarxay oo jaamacadda dhiganaya marka waxaan islahay wariyaho waxaa la sameynaya marka waa inaa qaato oo major aan ku noqonayo markaas waan fikiray Soomaali kaliya shaqo ma ahane suuqa halkaana waa inaan ku darsadaa xisaabta taa maxay ii keentay marka balance inaan sameeyo oo dhaho haye war waxaan waa inaan halkan hadda deganahay waa inaan halkan xoog saaraa haddii noqoto Soomaali maalinta loo noqonayna Allah na gaarsiiyo taa waa wax markaan ku leeyahay Soomaali markaan hadda u noqonayo oo ka soo shaqeynayo oo farba igu taagnay naftigeyga waxaan yani anigu ma xiri karnay moogtay albaab dadkeena halkaan ku dhashay فيلم يا برودي كده حيساتها يرد محيري كري فيلم وكم مشغول صنع لكن مشغول صنع عنده وحلا جرب إنا سبيس المركة وح بالانس ودك هذا إنا ورقبته يدك هذه ماشي أكون وشاينا إنا كقاعدة محلي هذا عك هذا كجوسط مركب لكن أنا محمد كعملنا جيل كهره فربا كتاجن هاد سببته وحويان هدي عرورتي هل كان لو دلي أما يقول يلا هل كان لكيري هدي لا شيء صلها ودي لا ود كان إلي كده حكتين عدكين سوق غوستا ولو برارو جلها وحاصل لها وحياة بدن فايدوين بدن أنا كيما الله أركاس ما هو كل قبا وحان أنا حتى أسوي جوجان أركي ديو بدن وحان استعمل لين شوبين هذا كور ويلا أضيان كوري سنة وكلا ويلا 20 سنة ودن جوجا إلا واجا إمد إلا هذنا وحان هايو ديارها بري ما بحر بريد ما بحر 20 سنة يوجر تويري عونك سنة هذا يقول شيء هو مو مالس مركز جيل كما دام وجابي والدين تلفتر كود إني جابنا يعني اسم فهم سنين حتى ومركز قوميدها كان أمبر دينو كلا بحركة سا ويجلا يعني بالشدة هذا جلان سياو بدن حكوا جلان لكن بالشدة مو مالس إني وحير بنانكو بحسن تاي أو ربان إن كلجر محل رقم كودو كأكادان أي إسكو أكادان إلا حافظ إسكو نقدان بوزيتيف كذا ويلادا لكن كلو ما يسوي حياة بدن ما يسلادا واصله سيف عن أسكوله أنت مهما واجت الصومالي بلده نقاون كلام قاضي حدي شاهد سلعة ويا لسه شيء كيسنا يدك هذه أكيد حجرته فإذا وين بلده هو حويان وأهرنته يعني وحب بنته لكن حدي وضعك الوضع عصبي أو قفك اللي عنده أفرنين حدي عنده نوفر مرك هذا وضعك كله حج أنا هذا اللي حسابت منه أو لساعيبين إنه وحجاني أنا فإذا كل شيء مدا مركز جامعات كبعي جروب كان سكيل بحر دن أنا يجي مرك سنايا وحسناها ين لماذا أجنبي ويل كان مدوية ميا مقرناي أبوك كان كول بالسنة سو شقوه اللي بدونا dadki waxa dadku ugu horbaray oo shaqo hore keenay gawaan aan waxa leeyahay oo meel ka bilowday ba waxay ii soo dirtay waxay tiri abuuk booskana ka banaan waxa u maleynaa position inuu fiican yahay niho soo dirso meeshii ka shaqeynaysa warbixinaysiis interview baa la soo wacay subax dambe interview ma ka qaad la saddex bir ka bacdi faraaq shaqada ka bilaabay marka haddana markaan jaamacada ku jiray xoog saar leeyahay oo student training iyo
يعني dadkii aan isla galaas isla dhigin yani faa'iidada leena ku sheegay carruurta halkan markay ayagu waxay ka soo baxeen ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare ilaa jaamacad waxay ku dhex jiraan dadka waddanka haddaan markaa ogaanin oo saaxiib la samaysanin markii saaxiib baa kuwa soo sheegaya hadhooti shaqooyinka sida looga helo kale ani waxaa la sameeyey daraasaad badan baa la sameeyey ma aha in heblow anaa aqaan isku siinayo laakiin information baa helaysaa boqolkiiba 75 waddankan shaqooyinka oo yani waxaan ka wadaa oo fiican oo la helo waxay ku imaataa ayaan le aan istaqaana maanta si sheekaysan waa yaqaana ayaan le meeshuu ka shaqeeyo waxba boos baa ka banaanaan doona wuxuu leeyahay war abuukar waxaan malaynayaa booska inuu arrintaa inay ku fiicanta kaalimo soo codso dadka shaqaalahana waa yaa yaqaana abuukar war anaa aqaaninka waa nin fiican reference ma u baahna tiro badanba taasaaba reference ugu xoog badan waayo marka waxay ku tusinayaan marka bulshada markay furan tahay markaan ku leeyahay nin qaawi kalma qaadi kar anigu marka the blind cannot lead the blind qalbiga indhoole qof kale indhoole kale ma ku wadi karo marka muhiimkaas leedahay marka waa inaan ogaanaa bulshada waa in la dhex galaa adoo taadi haysato kuma yani kuma qosodi ya haddana waxaad ogaan kartaa ma ogtahay meeshii qoraxda ka xigtina awaatid waayo waxaan xasuustaa 2 sano 3 sano ugu dambeysay waxaan ka shaqeynaa iskuul iyo aan u dhexeeyay iyo idaacadii sana u wada dhexeeyay laakiin iskuulka u badnaa tuulo yar aan deganaa markaan soo waddanka imaanay tuulada yar waxyaabaha aan ku doortay waxay ahayd magaalo weyn waa ku soo koro waa ku dhashay waa ku shaqeynay waxaan is dhahay waa fikirkayga waxay waddan cusub aad tagaysaa waxaa kuu fiican meel cusub oo dad badan aan lahayn maxaa ku fahmaa luqadoo kale luqad cusub ay igu tahay hore ka fahmi doontaa bulshadii meel hoose ka bilaabi doontaa fikirkayga dhacsanaa adi 2 sano kadib waxaan ogaaday inuu ii saxsanaa waxaan ku keenay 3 sano kadib waxaan arkay dad sidii kale haysata marka waxaan dhihi jiray war hal wax ma idiin sheegay ani aan sameeyay tuulada yarta aad ka ordaysiin waa asaaskiina haddii aad taas la qabsatiin tan weyn la qabsan kartaa laakiin haddii habarta isoo wacday oo ayaan soo bax imo kaal Stockholm magaalo weyn waa shaqo badan taalo ma keeni lahayn luqadan hadda aqaanay marka mar walba uu sheegi jiray waana bulshada waxaan isleeyahay aan hadaan ku weydiinayo bulshooyinka waxyaabaha noo diidi karay kamid tahay waxa la hebel isoo wac soo gur adiga intee joogtaa Orbro kala Orbroodi ma adinta YouTube imo marka waa isbahaysanaynayo waa isbahaysanay waa arrin fiican ma xuma laakiin isbahaysiga wuxuu hadii aan hal waddankan yani ilaa noo furnaa lahayn bulshada aan xir lahayn oo ilaa loo kala furiyay meelaha yani si furiyaashii irdaha lagu furdaa haysan lahayn waa fiican ay ahaan lahayd laakiin haddii marka aniga oo isbahaysi kaliya uu noqday wariyaa Soomaali ma aslan aan isbahaysano faa'iido qasaare loo keenaysa day waliba Soomaali bas maana reer hebel aslana hawa waliba inta badan tan disho way waniyo saas sameysaniyo waan sameeyay ayaan haye anigu markay imaaday walaalkii baa halkan deganaa gurigiisa saan la deganaa marka waxaan dhahay hadda waa ku sheegay dad yar halkan joogay laakiin walaalkii baa sad deganayna marka iskool waa aadi jiray marka waxaan dhahay saan walaalkii la deganaa guriga Soomaaliya ku sheekaysanaa of course sheekaysan marka saaxiibada oo inta markaas yaqaana waan saarka war sheekaysanaa waxaan dhahay maya fikrad baa igu soo dhacday saas meesoo kale waxaan aaday Strömsund meelida oo Sjösunkiya folkskoolkiya taas waxaan u aaday waxaan dhahay waa inaan horta soo barto meel luqadii qof aan Soomaali xataa isla adkeeyay aan yani waxay ku qasbaysaa markaa luqadii bas indhaha igu furmay sanad iyo ma hayso soo joogay kabacdi aan soo noqday waliba anoo ku xisaabtamay ma soo noqday markii aaba halka ku dhintay oo fasaxna ugu maaday saas oo kadibna waa soo guul mahane waxa laga yaabay lahaabay Sjösunnaas ka degan Allah maanta wallahi waa ku qamay waa muhiim وانا ماشي laga bilaabi kara asaaska waxaan qabaa hadii qofku uu dhinacaas ka soo bilaabo kale inuu fahmi karo marka shaqooyinkaba waa tan noogu dhibka badan oo markii loo fiiriyo xitaa noo diidi karo magaaladan Stockholm iyo Göteborg oo kale magaalooyinka ugu waaweyn Soomaalida meelaha ka degan xaafadooda kale oo xaafadaha isku raranka ah mar walba markii uu viruskan corona bilaabanayo ay soo xamar isku raranka ayaga u bixiyo waxay dhan guri isla wada degan marka waxaan isla isku raranka ugu dhowdaay waxaa la yiri viruska markuu imaanayo kaleete
saameyn badan ku yeeshay dadyoogaas isla wada degan oo kale iyo allahu aclam kole wax ilaah iska ogyahay waa laakiin haddana sidii qiyaasa waxay leeyihin saasa dhibaatada ah xataa kowga horeba mediada waxay ka samaysay riboodyo aana saxayn kadib mar walba cudurdaar mar kaba bixinayn kumuuna xataa degmo waxaas iskala tuun oo kale xataa si qaldan xataa u turjumad mar walba marka maadaama loo yahay ha lagu kacsado soomaalida marka isku duubnaadina inay jiraan maxaa la maxaa la organizationo tiro badan maxaa la foreenin tiro badan ay wada jiraan haddana ma jiraan ma isleeda ma dareemay maya kulli indhaha hadday wadi badankooda indhaha nabad xiran saasaa u kala tafaarabsannaha maaragtay حتى يعني تاسن دبي لهده aniga horta markuu imaaday covid berigi oo horta laba waxba waan ka murugooday horta waan ka murugooday focus baan la saaray waxaan dadkeena maxaa u dhimeeyay waa yaabo markii taasaan ismaleynaa moogta markii hore hadda waa fikir markaan arkay dadka ayagoo aan ka fikirin xumaatay inay ka ahayd u maleyn maayo soo saaray arrinkan ayagana waxa dhaa maxay saa noogu sameeyeen وكان اللي مقتنع وروحنا تخاطرت ضد قفنا مش يعني مرتبطه كان واحد يعني مقع موريجن كان ماشي كنت قف شيء اسمه جت موت عذر كدو هذا وحلا قبطه وروحنا كوين سو كشفي محيسا لو يلان iyo maxaa kaliya Soomaali waa markii waa hataa anigu xafiiska markaan tagay waa liiga cabsado waxa la adigu yaarba umrood idna tagtay ayaanta marka waa fikir la markii si baa loo fikirinay yani waxa keenay waxaan anigu kalima Soomaalida kaliya wax u qaasayeen ma ahayn laakiin waxay ahayd wax ku saabsan dadka ka shaqeeya service sector ama taxi hawado ama ka shaqeeya isbitaalada ka shaqeeya ama meesha dadka waaweyn lagu haya ka shaqeeya waa ogta dadka meelahaas ay u badnaayeen dadka dhinto dadka meelaha ku shaqeeya Soomaali badan baa ka shaqeysay ma ogta iyo markaan soo noqonay waan isjecelnahay oo dadkeena waxa waan isla deganahay waan tiro badanna waa isjecelnahay waa isla deganahay habbaan siinaayo kala markaa fiiriso arrimahaas oo kale waxaad ogaanaysaa marka wax anaga ilaahay noo soo diray kaliya ma ahayn cod waxaa jirta marka waa waan degay marka waxa marka wacyigelin baan ugu filan marka dadka meelaha ka shaqeeya way yareed ba xataa information dadka ma heli jirin oo media xataa si fiican oo qayb uga qaadan luqadaha kale waa la helaya la yiri laakiin markii dambe ay bilaabeen inay wada sameeyaan laakiin saameynteedii leed oo xataa waxa arkay maqla xitaa dadyow oo ay ku tiriyaan group riskiga ku tiriyaan xataa oo Soomaalida inay ku jiraan aniga waa taqaan Soomaalida macaan iyo dhikar iyo dadka aad u qabaan dhaxal ahaan u wada leh lama fiirinin jaw marka waxa la dhigi jiray oo dadka saas u dhinteen waaba dad sida ah oo iska ka raacay magaci marka dib ugu soo noqon marka labada siyaasadood marka fiirisi Soomaalida saameyn ma ku leedahay misli kartaa qurba joogto kale ama diaspora kale markii wadanka tagaan waxyaabihii ay ka barteen wadamadan xataa wadamadan way hormareen la dhahayo markii xagga tagaan oo kale wax inay ku soo kordhin karaan mister ma jiraan wax inay ku soo kordhin karaan aad horta covid haddaan wuxuu keenay moogta dhib badan buu keenay Soomaalida halkan kaliya maaha yani waxaan ka wadaa Soomaaliya joogta xataa markii xawaaladihii dadka shaqalaan baa ku dhacaysa halka moogta halka marka shaqalaan ku dhacda waxa dhibka keenaya marka xawaaladihii waa ogta dhib kale iska jira laakiin waa arrin kale waa taa yani waa dareema Soomaali anigu markaan Soomaali arkay waxaan soo ogaaday yani inta mucaawino adduunka dhan laga siiyo waxa laba jeer ka badan Soomaalida dibadda joogta lacagta ay Soomaalida u diraan dadkooda u diraan taa hakad baa ku imaatay markii dadka shaqalaan baa halka ka dhacay adduunka waddanka dhan waa adduunka yani waa waxaan dhibka hadda haysto dhaqaalaha oo covid-ka noo keenay waa globally caalamku dhan weeyaan hakadkaas woo galay maxaa soo haray Soomaali badan baan ku soo arkay yani aad baan ugu soo farxay horta Soomaali badan oo diaspora ah Soomaali ku noqotay saa sheegis marka waxa loo baahan yahay haddii marka nin ama gabar halkan wax fiican ka qabsatay waxa uu kordhay waxa uu kormeysay cilmi kororsi waxa uu kordhaysay yani waayo aragnimo si fiican waa ku taasoo kale yaa Soomaaliya geekarnaa dadkiina ku caawin karnaa waxaan hasta gabar oo Sweden wax ku baratay oo uustiga maxaa la Soomaali maxaa loo dhabalkan jiiska oo subdahan uustiga
ay ka samaysaa leer xag ka bilaabo gabaraan arkaya maalin maqlayo masha ilal waxaa jira xataa waddanka wax ku barteen oo hadda bilaabeen meelahan oo digaaga lagu xanaaneeyo oo kaleete fikrada way imaanayaan oo ayaga soo abuuraya laakiin waxay u baahan yihiin moogta laftirkeeda dowlad garab ku siiso ku daba taagan oo farsamo badan ay jiri karto nidaam dowladeed waa ina meesha jiraa waa inay jirtaa maxaa la yidhaahdaa nabad waa inay jirtaa meesha nabad iyo nidaam haddii meesha ooleen yani hadda qof waxaas leedahay qof baa bacmish raba inuu ka sameeyo soomaaliya oo kale irdaha dhaqaalaha kale waa aad u yiri ka waran nabad maxay keeni doontaa hadduu waddanka nabad ahaan lahaa oo nidaam ahaan lahaa waxaa imaan lahaa yani bangiyaa imaan lahaa oo fiican oo lacagta la deysan karo wax la samayn karo wax lagu samayn karo marka ilaa ay maqan tahay nabadan waan sugeynay geelka hartidan aan dhalaynin ilaa haddeer wili waa foolanaysaa waxaan haystaa madaxweynihii oo soomaali maxamed siyaad bare markii ugu dambeysay erey aan ka xasuusto maalin idaacadda ka dhegeysanaya wuxuu yidhi markabkii aan sugaynana weli ma soo xiran uu yidhi haddaa fiirisin shidaalkan la sheegayana weli meel taladiis lagu sheegay iyo waxta hadda kadib la qaban kara ma arkaysa laakiin kullamaa bulshada waxaa xasuusanaya waddankan oo Rwanda waxaa dhisayaa layidhi 90% dadyooga qurba joogta ah saa hadalka hadda horey aa sheegtana waxay ahayd lacagaha ugu badan waxaa laga diraa banaanka laga soo diraa sax muu malaysa marka dadkii handicap waxaaba ka dhigayaba dadyoon lacagtii ku caawinaya because qofka markaa caawi sidii waxaa la rabaa mogtaa inuu ganacsigiisa samaysan karo ganacsigiisa u balaali karo wax samayn karo laakiin hadduu bil walba taagnaado uno oo walaalkiyaa maqan walaashiyaa maqan oo aabahiyaa maqan oo iisoo dira lacagi dhankaas ka waran horta taa horta aad bay iga yaabis horta markaan anigu Soomaali tegina waan ka yaabay markaad timaado lagu arko diaspora inaad taho dibadda ka timaaday weliba anigu waxaan la shaqeynaya dowladda arrimaha dhaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo waxaan ku xidhnaa bangiga dhexe waxaa lagu leeyahay maxaad keentay barnaamijyo maxaad noo wadaa berigii dambe waan fikiray war waxaan meesha markaan arkay marka dadkana saasay ku socdaan yani war waxaan dhahay marka haddii aadaba adiga ogeen meesha u socoto qof ku caawin karta ma jirto horta waa inaa ogtaa baahidaada iyo waa inaa meesha u socoto waa inaa markaas samaysato qorshe samaysato markaasaa waxaad dhigi kartaa qof markaas waxbaa iga maqanayaa iyo wax igu dara maahane haddaa soo taagan dhibka haystana waa horta arrinta mucaawanado badan ee ku xidhanta mucaawanado badan oo dibadda nooga imaado lagama faa'iidaysan karo sababtaas waxaa keenaya qof dibadda joogo baahida waddanka taal kaama warqabo adiga haddaada ogeen baahida adiga ku haysa iyo qorshe haddaadan haysan oo leedaha baahida maxaa uga bixi karaa cid kaloo ku caawin karta ma jirto marka dhalinyaro badan saasaan ku dhiji waxaan markii lagu dhahay barnaamij noo keen waxaan barnaamijkan kuu keenaya maxay tahay ma ogtahay horta maxaa rabtaa meesha u socoto ma ogtahay qorshe ma haysataa hadda marka waddan dhan aan qorshe lahayn ma ka wada Soomaali yani tartiib soo kabsamaysaa laakiin waa in anigu waxaan dhahaa waa in crash program lagu qaada crash program ma maqli jirtay hal mar lagu ordo ha wacyigelin iyo nidaam dhisid waa in caruurta waa laga soo bilaabaa iskoolka marka iskoolka la aado in la yiraahdo qof waa inaan isku tashanaa hadii waxaan ka yaabaa marka qaar hadda waxaa la isku dagaalayaa baan leeyahay petrol waddanka noo soo socda gas baa noo soo socda Soomaaliya noo soo baxdo waddankaas aan rabin noo soo war waxaan dhahay malaayigan banaanka ku yaal ma soo qabsataan kana ba diyaarsan beerahan ma faltaa anigu markaan arkay moos dibadda laga keenaya xamar waa yaabaniya iyo Somali fruit oo jiri jirta mooskeena loo soo keeni jiray ilaa Talyaaniga la keeni jiray dibadda la keeni jiray ha iyo moos iyo markaan arkay caano booro la cabay waaba yaab ruuxan dhaa waddanka maalin dhexdaas waxaan la hadlaayay nin oo beeraha wax iska shaqeynaya wuxuu mid kale soo wareysto nooga sheekeynaya waxaa la yiri markii beeraha u soo go'i rabaan ama xilligii isku diyaarin rabaan hadda jadwal ma jira moogta webiga soo fakadaa lagu leeyahay ma haysta gobolada qaarkood ma haysta meel biyaha ku sii kaydsadaan wax dhawadii xaalad kala dhacdo maxaa la jiray biyo xireen oo kale ma jiro degmadii kama fakaraysa xitaa ma dhahays warseen sameeyay kale hadii xitaa lacag haysan inta qorshe la wada keeno dadkan diaspora hadda qabiil wax la isku aruuriya inaan war degmadaas wixii ka soo jeedo aan soo aruursano dawladda markaas wixii ku caawin karto marka ninkan ku wada warkiisa maxay wuxuu yiri markii beeraha soo bixi rabaan صح والله ديه رب الله الأمر هذا وح أبورنا مركزي إماذا عاونات لكينا
okay hadda Sweden aan magaaladan ka shaqeeyay intuu shaqeeyaa jidkan soo maray hadda waxay bilaabeen inay xirxiraan cawski uu cuni lahaa xoolahooda winterki صح biyihii wixii u diyaarsiin صح waxaas le waa ka maseera aniga wallahi waxaan dhaha war maxaa noo diiday caqliga oo quruxda badan aan ka faa'iideysan kar maxaa noo diiday هالشيء وبيدين لو فتحنا شيء يسوي كذا وبيدين إني فتح إلى والوجيه ما حد يحلل له سمين لاي وبيها حتى كيد محل سمين الرب لا بعد على كيد ما قبل وروح عند مركا داير كواحد اللي موقته هوينكي مركز جيت كرو سيحنا بعدين هوين مركز الرب ده أيوة كله وحالي رحمونا يا رب كداي ويقول لي بريت هدي إلهي وحاسس ما يسنا قريب عند السنة واسكي لا ما أنت نوع عيارة يا موسك بحي ماشي يلا سبحانه هبين كذا السجارة هذا الربع كداي ويقول لي هذا البريت حاسس ما يسنا مركو عارف ما خو حنا صومر تأوارا الربلان هذا وحنا فينا مركو ودنا لما تكسر ود ميسي وحنا صوم أوارا حق لنا صومر كلامة تشينج بعد عوية موقته ما حاسس واحد مركو الرب كده أنا وبيد وصوفتها لا بدي ولا جماعة فايدة سنوي محب ولا مركب بتروب بقول إن اللي بلاقي جاس طارنا أصاب باهي لنا قبل هنا وروح عندها إله بابا وحنا نقول مرة يستي برواقدا وحاب أنا يداوي وحاب حرانا إن عرورة الصومالي جوكت يهبي أيوه هبين قطن إني سعدنا بدين بيها أبدا بين ما أنا وحا مري قبل هذا دحدن وحا مري لبضو كون إيشانت اللحظة وحيلي محاكيمت مركي سبب بحيين والله وحا أركض دول marka Sweden u fiiri ama wadamo kale inta tagaan u fiiri isan Soomaali wadan u dhigmo u jireen wixii isbedel ma ogi laakiin fiiriya wabigan soo maro ilaa isku soo maro goboladan dhexe Beledweyne ilaa Jowhar soo maray dhul waxa ku dhex jira Jowhar iyo Beledweyne dhul aad u weyn oo beer iyo wax walba lagu sameeysan karo cid ka faa'iideysan bedelkeedu waxay ahayn dadka geedihiiba jabinayeen dhuxula laga sameeysan wadadka dhulkan laha aaween asleed geedaha la xariifinayo ma oo dhuxush inta la gado oo dhuxush laga dhigo dibada waxana oo dadka dhulka laha aawe oo ka taqna laha ma waqti qaadanaysa basically waqti qaadanaysa iyo xataa marka laakiin rajayna inuu isbedelo iskuulada marka inta u soo noqon wadanka Sweden oo kala ardayda waxa la yiraahdaa Soomaalida oo kale ayagiyo bitiga fiican ama shahaadooyin fiican ka heli kar maadooyinka qaarkood haddana waxaa maqan dhammaadaan kale maqnaanshahooda ama siyaabo badan ku maqnaadaan hadhow markii iskuulkii uu dhamaado kale qofka markuu soo qaangaaro kale waxa loo diraa iskuul kale dadka waaweyn iskuulada dhankooda xataa dhib waaweyn ku qabaan dhalinyarada hadhow soo bixi lahaa marka gaabka ugu hore wuxuu soo bagalaaba dugsi sare markuu soo galayo exactly ma soo gudbi karo maxaa way duruufaas ama duruufaas niyahow islaam baa hadda kale la sheekaystay markaas waxay u tiri niyahow carruurteena markay yar tahay waxay laba sibay noola dhaqmaan gurigana sibay ugu dhaqmaan banaanka markay joogaana sibay u dhaqmaan laakiin maalinta soo gaara teenage faray ka baxaan marka taas waxay aniga daawid marka aan sawaan bigay taa waxay ku guumudhabaysaa marka waxa way ku soo wada biishobanaysaa warjiilkeeni koobaado sidee ula dhaqantaa carruurta halkan ku dhalatay iyo carruurta halkan joogta iyo bulshada ku joogta halkan joogta yani waxaan arkay carruur badan baa arkay oo markii la soo gaaro dugsiga sare la soo gaaro aan dugsiga sare ka bixin marka waxaan ku dhahaa kuwaan arkay waxaan ku dhahaa warniman yahow faa'iidada ah haysataan oo kale ma fiirsataan aan ku dhahay kuwa Soomaaliya joog ma haystaan maad ka faa'iideysataa qofka og moogta hadaa ogtahay taa markaa ogtahay moogta waxay ku gelinaysaa moogta xay waxay ku gelinaysaa fircooni warayo waxaan dhan baa haystaa waxbaan baran karaa laygama rabo caafimaad inaan lacag ka bixiyo intaas waa leedahay markaa wax soo baratana shaqaa heli kartaa haddii ilaahay kuu sahlo taa marka maxaa uga faa'iideysan laanahay anigu fartaas waxay ku badan tahay jiilka koowaad may waa kula qaba may waalidka ugu horeyso oo waxaan arkay waalidiin badan aan xataa la hadlaa jirto oo ma dhowr jeer barnaamijyaan ka sameynayna waxaan u malaysa waalidka inuusan ka warhaynba cunugiisa ma ka warhayaan 15 sano 14 sano markuu soo gaaro waxaan ku arkaysaa centerka isagoo taagan dhalinyaro kale badan ajnabi kale barana jaa marka maalin waxaan akhrinayay oo igu naxdin xataa igu noqotay maqaal yar oo uu ka sameeyay journalkan Youtube post ka sameynay Youtube-ka
صح dhahayn maxaa la yidhi dhalinyarada soomaalida ee ku jira gaangistiga صح way ka fiican yihiin ka aktiifsan yihiin ale dhalinyarooyin kale maxaa la yidhi ma naxaana la yidhi yacni shaygan sameey way samaynayaan la Sure. yidhi ficnaantas maxaa waa eri tilmaamtana lagu samey marka geotobori oo kaleta meeqaa degan soomaali ma maqleenaya ereygaas horta la dhahaya صح miidhida ma ka warhaayaan ma akhriyaan waxyaabahan la sheegay may marka horta kama warhaayaan waalidka waa wax badan oo ugu horeeya waay markaan ku leeyahay qof dhexda qof kale ma toosi karo marka yani bulshada waa inaan la qabsano aan degannaha oo ogaano war waddanka hadda intaan degantaha halkan carruur ku dhashay waa inaa ogaata inaa leedahay inaa wax ka leedahay haddaana taa aniga markaa Soomaaliya tegin mid kale liigu harowsan jiray berigi hore waxaa la jiray haa waddanka waa waddanka meeshaas aad joogto waxba kuma hin soo maaha halkan aski ma waddanka war waxaan dhahay waddankaana waxbaa ku leeyahay halkanna waxbaa kula leeyahay yaaba heli karaba qofkaas oo kale caruur baan arkay moogta xaafada kaaba degan details anoo sii sheegaynin markaasa waxay igu yidhahdeen group baan iskula socona saaxiibanahay caruur Soomaaliya anigay mashquul igu noqday marka waxaa la yidhi adiga halkay ka imaatay waa comedy flow waan fikiri markaasa waxaan ku dhahay anigu waxaan ahay Swedish no ahay Soomaali no ahay waa qosleena markii waa fahmo waxaan ku dhahay horta adiga Soomaalinimada sheeganaysid adiga af Soomaali mataqaan Soomaali ma tigin Soomaali anigu Soomaali aan ku dhashay Soomaali waa aqaana adiga maxaad keeni kartaa mid kale marka waa fikir waxaan ku dhahay niho ogaada waxaad ogaatiin yaaba heli karaan dhahay qof laba wadan isku haysta yaaba heli karo chance-kaas oo kale waddankaana waa leedahay oo halkan aad ku dhalatay hooyada aabahana waxay ku dhasheen laga yaabaa Soomaaliya oo Soomaali ahaan saas ku taa waddan ba halka hadduu marka kuu bogsood aad karto haysta ku faani kartaa laba waddan baa ku faani kartaa marka ogow taas marka waxaan ka wadataa haddaad ogeyn inaad wax ka leedahay meeshaad wax ka leedahay saad yani fircooni kugu soo gasho wax ula qabsato waad kaa doontaa marka aniga waxaan ku bogaadin lahaa waxaan dhihi lahaa waa inaa ogaana horta waddankan inaa wax ka leenahay laga bilaabo waana runa qofka meesha uu aasaaska salka meesha u yaalla hadduusan badbaadin ma heli karo waxaa arkaysaa fiiriya 2015 waddankan carab badan kusoo yaacday suuriyaanka ugu badnaa maanta dukaamo yar baa iska furtaan laakiin waxaa arkaysaa qaab ahaan marka loo fiiriyo waxay samaystaan oo ma degano guryahan oo aparti maxalla qolalka caadiga guryaha caadiga gadanayaan xoogaa bulshada wax yar waxay ka dhex fahmayaan inkasta waddankooda uu nabad ahaa muddooyinka ugu dambeeyay waxaa arkaysaa maqaaxid yar ha samaystaan si yar ugu faa'iideysanaya laakiin anaga 30 sano joognaa ama haddaan maqaaxid xitaa samaysano maqaaxid waxay noqonaya oo anaga laga ku eg oo lagu shaaheeyo lagu doodo lagu qabiil looga hadlo macajiibkeeda saaxiibada waxay weydiiyeen waniga waxay dhahay maqaaxid Soomaaliya hadnaa noo sheeg maqaaxid Soomaali ma aadna markii waxay arkayaan muddo maqaaxid badan Ethiopia waddanka laga furay Iiraantii si dhaaf iyo waxaan ka wadaa ajnabiga kale يعني كون نوصل دوام كشيء وقت إثيوبيا مقالة الأحد ذيك وياه مقاعد أول سكتور يعني ضبط متجا واحد مقاعد السكر سومالي ما عندها ما في كلام عندها ما زي يعني سوي كل يرن كرم كل يرن كرم أو كله والله وعجيب عجيب وحيا قفل بوحو صوبا نجا وحيابات لقن كيسولة إثيوبيا كاسو كلا بونكاس عن جالات وضحوا صوب نجا وكلا هذه وحيا أنت قروح ستة دي كرتا وحيا واكنا لقن كي دت كلام كجذي كرا لين قفل بو أنا وحا هاي سفير ودن كسعودان وأنا فاهم كرا ما عجيبة ما هو شيء كذا ذي الهانسة ما إنده وين أفرنا إنده بدن هذا بين ما ولا كل غبا أبو كر ودن كان واب حلي نورش هذا أنت ku qaadatay ودن كان waa ka warhaysa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan dhan walba guud ahaan markaa fiir intaana soo xinin barnaamijka rajo ma ku muuqata rajo oo wadanka inay wax iska bedelan ka Soomaaliya rajo fiican baa ay muuqataa aniga maxaa dhacay ma taqaanaa waxa anigu markii hore waan naxsanaa markaan barigan tagay oo ku soo waan nax markii hore laakiin waxaan markaad ogaato wadanka dibka oo soo maray iyo maanta meeshan taaganahay ma sha Allah yani waxaan ka soo gudubnay waxyaabo badan oo dib badan oo jid xireen aan ka soo gudubnay waxa dhacay marka dib haddii saddex talaabo loo qaad hal talaabo dib loo noqdo waa faa'iido marka anigu rajadeeda aad ay u weyn tahay laakiin waxaan laga doonayaa inaan ogaano
waxaan dhaha waddankaas waa gobolada ku dhigta ii sheegaysa waddankaasaa u ballaaran oo u quruxda badan oo u barwaaqada badan Soomaalidan intay tahay 10 milyan oo malaynahay ha 10 iska dhex 10 12 xataa iska anigu markaa waxaan jooga markii aan soo sameynay xisaabta Soomaali gobol walba wuxuu yiri 5 milyan ba halkan degan war markii la isku daro waxay noqotay 25 war waxa li waxa macquul ba iska dhex baadi 10 iska dhex taa waddan naga filan baa qabnaa laakiin maxaa naga maqan inaan ognahay calanka buluuga oo xidibta cad ku dhex taal shanta inaan ogaana war waddan baan leenahay aan dhisano waddankeena waa imaan doonta markii dhalinyaro badan baa saa ii sheegay boqolkiiba 70 kaas dhalinyaro badan baa ka buuxo oo indhaha u furto ku daashay waxaan oo u baahan war waddan baan rabnaa nidaam leh kala dambeyn leh si hal shaqo u helno iskooladaan u helno caafimaadaan u helno insha Allah anigu rajada aad bay u macaantahay inkastoo jidku dheer yahay may sabir iyo dulqaad iyo maxaa la jugjug badan u baahnaana may anoo kula qabo Abuukar aad iyo aadan kaaga mahadcelina waqtigaada qaaliga iyo gorfeentana isla sameynay iyo taariikh ahaan inta usoo joogtay iyo farxada ii tahay mar labaad inaan is aragno waan rajeynaynaa mar badan is arki doono podcastka mar walba waxaan rajeynaa topic kale cusub hadaa helno kaleeto inaan mar kalena marti ku noqon doontid waa kaaga mahadcelina Abuukar waqtigaada qaaliga adigaa mudan